xogayaha fulinta ee dowladda hoose degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh ayaa maanta si rasmi ah u iclaamiyay in gaadiidkii scrap-ka ahaa ee dowladda hoose degmada Burco yaalay ay xaraashi doonaan kuwaasi oo ay ka xaraashi doonaan cid kasta oo soo marta sharcigeeda waxaana uu sidoo kale xogayahani fulinta ee dowladda hoose degmada Burco uu cadeeyay in sifo sharciga waafaqsan oo goluhu u dhan yahay ay ku iibin doonaan gaadiidkani gaboobay isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri antu taariikhdu tahay 9 bishii 6 2018 waxaan halkan ku soo bandhigaynaa ama aan u sheegaynaa dadweynaha reer Burco in iskaraab badan oo gaadiidkii dowladda hoose hore ahaa aan ku xaraashino dadweynaha reer Burco ama reer Soomaaliland kolba qofkii wixii noo imaada gaadiidkaas oo aan waac badan isku jira bas isku leeyahay aan ku saru leeyahay xaajiyadu leeyahay boolidahan buu leeyahay bilaclaha iskarooyin buu leeyahay qalabkii cagafyada oo farabadan baa yaal waxa alaabta aan waacdaas oo nidaamkii sharcigii golaha deegaanka aan ka ansixinay هذه قدراسية كسوة سحني وحن دولنا إن عن دبوينها وصوبان لقناه يستكلنا كلنا وعي قلنا هو كسب سن عذر كدلاجة هي في أريسكا أي اللقو قبتي مقالة برعو كلنا كانوا يفلون يصوروا كسم فلك هي فسمو وإذا قالها كعاونا ينوروا كابلس فونديشن قدوميها أوروا كسم فلك هي فسمو نمع سلام يا كوديراتي مهمته وكلنا كان اللي هي سيدوكله waxay tilmaamtay sidii bulshada loogu wacyi gelin lahaa dhibaatada laga dhaxlo cudurkan dilaaga ah kulankani waxa uu la mid yahay kulanna taxanaa oo aanu sanadkan gudihiisa ka wadnay dhammaan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland taas oo laga hadlayo sidii looga wacyi gelin lahaa dadka naafada ah ee ku nool gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland lagana wacyi gelin khatarta uu leeyahay cudurka HIV/AIDS gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Baxle ayaa isaguna sheegay in kulankan yahay mid waxtar ah ugana mahadnaqay ururkan hagayay waxaana uu bulshada kula dardaarmay inay ka fogaadaan wax kasta oo laga qaadi karo cudurkani gudoomiyaha ururka naafada Togdheer Salaadin iyo waxgaradka halkani ka hadash ayaa iyaguna ka sheekeeyay muhiimadda uu kulankan u leeyahay dadka naafada iyo guud ahaanba kuwa gobolka Togdheer Cabdirasaaq Faarax Cabdilaahi telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Burco.